waxaad arkaysaa qof 16 sano jaamacad dhiganaya laakiin paragraph aan qori karin qofkaas hagaag akademi hadduu soo galo problemkaas waa ka haraya bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare al-ustaad Faarax Abdul Qaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir al-ustaad Abdul Aziz Uthman madaxda ka socota akademiyada hagaag oo halka fadhida ustaad Umar Faaruq iyo ardada qiimaha badan ee maanta qalin jabinaysa waalidiinta bahda waxbarashada dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka mas'uuliyiintan aadka u qiimo badan oo wasiirka waxbarashada ugu horeeyo arrintaas runtii qiimo badan iyo fariin badan oo xoogan ayay diraysaa oo macnaheedu yahay in wasiirka waxbarashada oo aad iyo aad u danaynayo in dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay aadaan dhanka waxbarashada dhanka skillska iyo xirfadaha dhankaas lagu booriyo fariintaas ay runtii aad iyo aad u diraysaa marka soo dhawaada wasiirka iyo Abdul Aziz iyo dhammaan madaxda kale soo dhawaada insha Allah inta kadib waxaan rabaa inaan si qalbiya aan ugu hambaliyeeyo ardada halkan ka qalin jabisay oo 45 qof oo labada program ama labada barnaamij ka baxa barnaamijka koowaad oo diploma in secretarial office management iyo course leadership and management ka baxeen aad iyo aad ayaa runtii ugu hambalyeynaya waxaan idin leeyahay hambalyo soo dhawaada maanta yani qofka bani aadana markasta wuxuu leeyahay maalmo qiimo badan ayuu runtii aad iyo aad u leeyahay ardadaas juhdi badan ayay runtii soo bixiyeen waxaan rabaa koorsiyadaas wax yar inaan sharaxo si loo fahmo diploma in secretary office management taqriiban waxay ku qaateen dadka dhameeyay maadooyin aad iyo aad runtii saameyn ugu leh ama qiimo badan kale xagga suuqa marka la joogo iyo arrimaheeda waxaa kamid ah maadooyinkaas sida data laga dhawaajiyay safiya typing skills ka kamid ah computer application ka kamid ah waxaa kamid ah report writing ama qoraalada in wax la qoro oo runtii inta dalka aan joogay meelaha ugu dhibka badan oo dhalinyarada dib oo ka haysa ay tahay xagga qoraalka waxaad arkaysaa qof 16 sano jaamacad dhiganaya laakiin paragraph aan qori karin qofkaas hagaag akademi hadduu soo galo problemkaas waa ka haraya insha Allah ta'ala